السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada barashada xisaabta oo taxaniin ahayd. daawadayaal magacaygu waa Shine Gestir. caawa videogan waxaan ku baranaynaa area and the perimeter of quadrilaterals, beedka iyo wareega afar geesolaha. mawduucii ka horeeyay waxaan ku baranay magacyada iyo calaamadaha afar geesolaha. caawana waxaan baranaynaa sida loo helo cabirka beedka iyo cabirka wareega afar geesolaha. su-aasheena koowaad waxay leedahay find the area and the perimeter of square. raadi beedka iyo wareega laba jibaaranaha. beedka iyo wareega laba jibaaranaha inaan soo helno waxaa inoo sahlayaa qaacidadeena halkan ugu qoran. formulaga halkan ugu qoran wuxuu leeyahay areaga beedka laba jibaaranaha waxaa lagu helaa b lagu dhuftay h. b waxaan soo gaabinay base ayaan soo gaabinay, h na waxaan soo gaabinay height, waa dherarka. marka areaga laba jibaaranaha waxaa lagu helaa base lagu dhuftay height. marka baseku waxa weeyaan salka uu ku fadhiyo waa dhinacan baseka, waa salka uu ku fadhiyo ayaa la yidhahdaa ingiliishka base. baseka oo lagu dhuftay heightka dherarka. sidaan ognahay laba jibaaranaha dhinacyadiisu dhammaantood waa isku cabir, way isla egyihiin dhammaantood waa 6 centimeter. marka dherarka ama heightka laba jibaaranahan waa 6 centimeter, waa 6 centimeter. basekana waxa weeyaan 6 centimeter. marka area waxay la mid tahay base lagu dhuftay height. baseku waxa weeyaan waa 6 lagu dhuftay heightkana waa 6. marka areaga ama beedka laba jibaaranahan waa 6 lagu dhuftay 6 oo ah 36 centimeter square. halkaas ayaan waxaan kusoo helnay beedkii laba jibaarahan. laba jibaarana walbana sidaa unbaad uga shaqeynaysaa, wax mushkilad ah haba yaraatee ma laha. haddaba waxaan ku gudbaynaa wareega sideen kusoo heli karnaa. wareega qaacidadeedu waxay leedahay perimeter on p usoo gaabin waxay la mid tahay 4 lagu dhuftay s. sta waxay la mid tahay sideka, waa dhinaca. marka haddii aad 4 ku dhuftay dhinaca oo ah 6 centimeter waxaa kuu soo baxaya wareega laba jibaaranaha. macnaheedu waxa weeyaan wareegu wuxuu leeyahay 4 dhinac, 1 2 3 4. haddaad ku dhufatid hal dhinac oo ka mid ah waxaa kuu soo baxaya wareega. marka perimeter halkan ayaan ku xisaabsanaa. perimeter wuxuu la mid yahay 4 lagu dhuftay sideka. sidekuna waxa weeyaan waa 6. marka perimeter wuxuu la mid yahay 4 lagu dhuftay 6 waa 24 centimeter. sidaas ayaad kusoo helaysaa wareega laba jibaaranaha. waxaa kaloo samayn kartaa adigoon isticmaalin qaacidadan ayaa waxaa samayn kartaa. waxaad dhihi dhinacan waa 6 centimeter, waxaan ku darsanayaa dhinacan oo 6 centimeter ah, waxaan kusii darsanayaa dhinacan oo 6 centimeter ah, waxaan ku daranayaa dhinacan oo 6 centimeter ah. dhammaantoodna waxa weeyaan waa 24 centimeter. marka wareegu waa dhinacyada dhammaantood oo la isku daray. kaasi waa tusaalaheeni koowaad. waxaan rajeynayaa inaad hadda wax ka dambeeya aad awoodid inaad ka shaqaysid wareega iyo beedka laba jibaaranaha. waxaan u gudbaynaa shaxankeena labaad. waxaa la yidhi find the area and the perimeter of rectangle. raadi beedka iyo wareega laydiga. sidoo kale areagiis waxaa lagu helaa ama beedkiis waxaa lagu helaa base lagu dhuftay height. waa isku mid qaacidada lagu helo laydiga iyo squareka ama laba jibaaranaha. haddaba waxaan ku horeynaa inaan soo helno areaga
laydiga waxaana la siiyey beeska waxaana la siiyey 8 centimeter 8 centimeter ayaana la siiyey. waxaan marka base waa 8 centimeter 8 loogu dhuftay height-kana waxaana la siiyey 4 centimeter 8 loogu dhuftay 4na area marka waxay la mid tahay 8 loogu dhuftay 4 oo ah 32 centimeter square. halkaas ayaad ku soo heshay beedka laydiga. sidaas ayaana laydi walba uga shaqeynaysaa markii lagu diro beedkiisa ama areagiisa. haddaba aan perimeterkiisa soo helno. perimeterka laydiga waxaa lagu helaa 2 lagu dhuftay base lagu daray height. marka perimeter wuxuu la mid yahay 2 lagu dhuftay baseka maxaan haysanaa perimeterka laydiga baseka laydiga waxaan haysanaa 6 centimeter somaha raali ahaada 6 waxaan haysanaa 8 centimeter raali ahaada waxaan haysanaa baseka laydiga 8 centimeter haye 8 centimeter lagu daray baan haynaa height-kana maxaan haysanaa 4 centimeter isku dar marka perimeter wuxuu la mid yahay 2 lagu dhuftay 8 lagu daray 4 waa 12 2 ku dhufo 12 marka perimeter wuxuu la mid yahay 24 centimeter. marka waxa weeyaan haddii aad xasuusatid videoga ka hor waxaan kusoo baranay laydigu inuu yahay opposite sides equal dhinacyadiisa ka soo horjeeda inay isleeyihiin. dhinaciisa ka soo horjeeda waa la cabir 4 centimeter dhinacana waa 4 centimeter dhinaciisa ka soo horjeeda ayuu la cabir yahay waa 8 centimeter dhinacana waa 8 centimeter 8 centimeter lagu daray 8 centimeter waa 16 waxaa ku dartaa 4 centimeter oo dhinacana waa 20 waxaa ku dartaa 4 centimeter oo dhinacana waa 24 marka waan soo helnay jawaabteena waa sax qaacidada haddaan raacno. haddii kalena sidaas ayaad u xisaabsanaysaa dhammaan dhinacyada inta ay yihiin cabirkooda unbaa isku daraysaa marka lagu yiraahdo wareega ama perimeterka laydiga soo hel. okay taasi waxaan kaga gudbaynaa shaxankeeni labaad ee ahaa laydi. waxaan u gudbaynaa shaxankeena saddexaad. shaxankan saddexaad wuxuu u baahan yahay inaad aad ugu fiirsatid. shaxankeena saddexaad waxa weeyaan barbaroole Englishna waxaa lagu yiraahdaa parallelogram. waxaana la yiri markaa find the area and the perimeter of parallelogram. raadi beedka iyo wareega barbaroolaha. formulagiisu ama qaacidadiisu markii la raadinayo beedka ama areaga barbaroolaha waxaa lagu helaa base times height. waa sidii laydiga iyo laba jibaaranaha. haddaba aan soo helno marka hore shaxankan halkii nooga muuqda areagiisa. areaga waxaa lagu helaa ma dhahnay base lagu dhuftay height. area marka waxay la mid tahay base xagee weeyaan baseku waa salka uu ku fadhiyo. salka uu ku fadhiyaa baseku waa imisa. basekan laguma qorin tiradu yahay laakiin waxaan soo baranay mawduucii ka horeeyay inuu barbarooluhu dhinac walba dhinaca ka soo horjeeda uu la cabir yahay ama uu leeyahay. marka dhinacan wuxuu leeyahay dhinacan marka waa 8 centimeter marka basekuna sidoo kale waa 8 centimeter. hay marka hadda waxaan ogaanay baseku inuu yahay 8 centimeter halkaas ayaan 8 centimeter ku qoraynaa lagu dhuftay height. marka height-ku waa maxay? height-ku dadku waxay ku qaldaan inuu yahay kan barbaroolaha dhinaciisan kale. ma aha height-ka barbaroolaha dhinacan height-ka barbaroolaha waxa weeyaan xariijinta halkaa laga sameeyo ee ku qotonta baseka kadibna sameynaysa xagal quman. kaas ayaa la yiraahdaa height-ka ama dhererka barbaroolaha. marka height-ku waxaana la siiyey 3 centimeter. marka waxaan dhahaynaa basekii oo ahaa 8 centimeter
beeska oo ahaa 8 centimeter oo lagu dhuftay 3 centimeter oo ah height-ka. marka area-ga barbaroolahan waa 8 lagu dhuftay 3 oo ah 24 centimeter square. haddaba waxaan soo raadinaynaa wareegiisa ama perimeterkiisa. perimeterka waxaa lagu helaa 2 lagu dhuftay length lagu daray width. length waxa weeyaan waa dhererkan sidekan dhererkiisa iyo height-kan way kala duwan yihiin. area-ga marka raadinaysid waa inaad taqaanid height-ka barbaroolaha. markii aad raadinaysid perimeterkiisana waa inaad taqaanid cabirka dhinacan dhererkiisa intuu la egyahay. marka waxaan dhahaynaa marka perimeterka waxaa lagu helaa 2 lagu dhuftay length-ka sideka waxa weeyaan waa 5 centimeter oo lagu daray width-ka ballaca dhinacana waa 8. marka perimeter waxay la mid tahay 2 lagu dhuftay 5 lagu daray 8 waa mise waa 13. marka perimeter waxay la mid tahay 2 lagu dhuftay 13 waa 26 centimeter. sidaas ayaan waxaan kusoo helnay wareegii barbaroolaha halkan nooga muuqda. haddaba waxaad samayn kartaa adigoon raacin qaacidadan ayaa waxaad samayn kartaa inaad isku dartid side walba cabirkiisa dhammaantood isku wadar kadib waxaa kuu soo baxaya wareega intuu leeyahay. sidekan waa 5 centimeter sidekana waa 5 centimeter. labadan side waa isleeyihiin marka 5 iyo 5 isku dar waa 10. waxaad u geysaa sidekan oo ah 8 waxa weeyaan waa 18. waxaad u geysaa sidekan oo ah 8 waxa weeyaan waa 26. sidaas ayaan waxaan kusoo helnay shaxankan halkan nooga muuqda ee ah barbaroolaha beedkiisii oo ah 24 centimeter square iyo wareegiisii oo ah 26 centimeter. wareegana haddii la kala fujiyo oo la isku dhajiyo dhererkiisu waa 26 centimeter.